So I thank you, all of you, for your presence. And today we are here together and to see the added value of the diaspora, what we call diaspora. Those who left the country and living abroad and willing back to invest back home. But most of non-Somalis, they don't understand, because we are investing every day. We are sending money back home, what they call remittance. And we are not only sending remittance, we are helping them also, our relatives, friends, to do their own businesses informally. We don't register. And there is also in the world some people who are willing also to see and how they can help with the suffering and situation in Somalia. And that is why today BID Network is a Dutch company, and in collaboration with IVAD, it's an international is it NGO? It's international non-governmental organization based in Italy, are doing some help to do and to see how they can support and production capacity of Somali entrepreneurs, especially in the agriculture food. Saying that, and we are Muslim by origin, most of Somalis, so we have a tradition, and when we gather, we do some reminder for our Creator and Subhanahu wa Ta'ala, Allah. So I would like to invite one of the youngest participants today, and Adher Ali Khalif Osman, Khalif Ali Osman, and just say some Quran words so that can be blessed today, and then we remind and why we are living. Adher Sodos. waxay ila tahay magacayga hadee professorka horey ugu sheego oo noqon ma targetka wixii la igu yeeran bilaabayo a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmanir rahiim wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. That's the only word I made. And Mahadsani, that means thank you. And Ilahi Kaja say, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As I said, it's very simple and reason that we are here today. We are looking, those of you who are willing to support initiatives coming from our country and willing to participate, both grant-wise, also investment-wise. And BID Network, they will explain what the program contains. We are just facilitating, and I'm coordinating today. And that's my role, and I hope I will fulfill accordingly. As I say, we are late. My welcome is already finished. BID Network will do their presentation, and Samakab Ali will bring some modernization, modern world of agriculture, and how Somalia can also profit using that kind of concept. And Saadio Parre from Diaspora Business Center, a young lady who's studying in Netherlands, so she did also some research about Gedo region in South Somalia about agriculture activities, and she will present that. After that, we go to G International Logistics Agriculture in Mogadishu. Omar Hassan will tell us something about the diaspora and how the diaspora are ready to invest back and what they are doing already, investing back home. And we will see how that the program of BID Network and IFAD and the idea of the diaspora will match. We will have coffee break, and then we have a panel discussion. After that can be question and answers will get placed from BID Network if they are not clear for their presentation. So we have chance back to ask them a lot of questions so that they will get a valuable feedback.
And we will wrap up at the closing, and then we will have some coffee and tea and some drinks again. And that will be in the program of the day. I would like to give the floor and BID Network and Matching Fund and Marie Formoso. Thank you very much, Gulet and Sagal, for inviting this event, for organizing this event and inviting us here. My name is Annemarie van Mossel. I work for BID Network Foundation, and I'm here together with two colleagues from BID Network. Laura Smeets, sitting here, she's responsible for investor matchmaking services. In the back, Charlotte. She's responsible for communication, and also Ismail Abil, who you all may know, is very actively involved in the program. He's the director of Colored Consultancy. Myself, I'm responsible for the business support side of this Somali agri-food program, among others. I would like to present three different things in this short presentation. First of all, explain a little bit about BID Network and what we do. Secondly, talk a little bit about the concept of business angels in emerging markets. And thirdly, of course, explain the Somali agri-food program. Shall I just tell you every time to go to the next? Yeah. Okay, so about BID Network, what we do basically is linking entrepreneurs and investors. Our entrepreneurs are all based in emerging markets all over the world. We have a large network of entrepreneurs from many different countries. Typically, these entrepreneurs have SMEs with a financial need ranging from $10,000 to $500,000, so we really focus on the SME segment. And on the investor side, we work with different types of investors. Because every entrepreneur needs different finance. So these can be business angels, banks, SME funds, sometimes more philanthropic organizations. And the entrepreneurs we work with, they operate in any kind of sector. Not for this particular program, but this is our overall scope of work. So why do we exist? BID Network was established in 2007, so we exist now for around 7 years. Initially, we started to organize a worldwide business plan competition for entrepreneurs all over the world, and we received a couple of thousand entries in the first years. Our reason to do that was because around 1 billion of the people all over the world lives with less than $1 per day. And we believe that stimulating the local economy, stimulating small and medium-sized enterprises, can increase income for these people, can generate jobs, enhance innovation, and therefore create a larger middle class. Because SMEs, well, they bring in money and they create jobs. So that's why we started what we are doing. However, the type of companies we work with, and that's what we found out really soon after organizing a couple of worldwide business plan competitions. The companies we work with have one major problem, besides other challenges, of course, but one of them is access to finance. And that's because for micro enterprises, there are quite a number of microfinance institutions available. For larger businesses, there are also financial opportunities available from banks, venture capital funds, but for the SME sector particularly, there is the so-called missing middle gap, as you see here. So how do we work? Well, as I said at the beginning, BID Network brings together entrepreneurs and investors. So we're sourcing entrepreneurs still through business plan competitions or through programs such as this Somali agri-food program. Sometimes entrepreneurs approach us or we go after them. It's basically a kind of survival of the fittest, because we support entrepreneurs in developing a solid business plan with which they can go to a bank. And entrepreneurs with the best business plans enter our investor matchmaking portfolio, where Laura and her colleague Marijn are trying to link these businesses to investors. So on the other hand, we're also always looking for new investors, and we also provide sometimes workshops for them or trainings on how to invest in these kind of SMEs. Yeah, as I said, it's kind of survival of the fittest. So in the past years, we received around 15,000 applications from entrepreneurs worldwide,
which around 4,500, so around 1/3, managed to develop a full business plan, and another 10% of these entered our matchmaking portfolio, meaning that they were actively presented to our network of investors. There are around 200 financiers in our network currently. Yeah, as I said, different types of financiers. And so far we managed to, around 150 entrepreneurs managed to find finance for a total value of around $20 million US. So this all happened in the past 7 years of our existence. There are many business angels, for instance, let's say in Silicon Valley, entrepreneurs who have sold their iced tea business now have earned a lot of money and want to invest in other companies. But also in Europe there are many different business angels, and in other continents, Africa, it's really a growing market. So in every country there are rich people that do have income or do have money to invest in other businesses. Maybe another thing to say, business angels do not only invest their money, typically, but they invest so-called smart capital. So that means that they invest money, but also invest their knowledge, their networks. So they're actually involved in the business to a certain extent. And the extent to which they are involved in, that's something that is been agreed upon between the investor and the entrepreneur. So that's something that they discuss and decide on in their negotiations. But typically business angels are actively involved, and it's really, for them, it's most interesting that the business becomes a success. So here to sum up again, business angels, they sometimes invest on their own, but they also invest a lot in groups, and that's why they often find business angel networks to co-invest investment opportunities together with other investors. Important matter, they understand very well the risks of investing in a business because they have been in business in many cases before, so they know what it takes to start or to invest in a business. As mentioned, they are involved through their, because they finance the business, but also because they invest knowledge and networks, expertise. And they typically retain their investments for 3 to 7 years, but this is also sometimes shorter, sometimes longer. This depends on the deal that has been negotiated between the entrepreneur and the investor. And normally they obtain opportunities about, they obtain information about opportunities through their own networks, but also through organizations probably such as Netsom, but also such as Bid Network. And this Somali Agri-Food program is one of the opportunities for them to identify finance-ready business opportunities. So why are business angels now so important? Why am I explaining this? This is because they are typically the best positioned finance providers to serve small and medium-sized enterprises, because they are also called informal investors. So they understand that the cycle of a business very well. They typically invest in early stage companies or in established SMEs. Their financial range kind of corresponds to what the amount of finance that these businesses need. And because they invest with knowledge and network, they can be very helpful for starting entrepreneurs. So funds, for instance, they often take larger investments. They need a lot of information about the track record of the company, a lot of documentation that the company in the early stages cannot always provide, or they cannot always meet their criteria, and the same counts for banks. So that's why business angels are so crucial in the whole area of financing SMEs. So how about the investor relation with SMEs? Well, they're typically minority shareholders, so the majority always stays with the entrepreneur. However, they are involved in the business, as mentioned, so they may take on a board seat, they may be involved in the management, they may provide advice to the entrepreneur, all decided on an individual level, and they typically take on a hands-on approach because it's also really in their interest that the business becomes a success.
yeah, for them, investing in SMEs is an opportunity to expand their network and to bring in their own knowledge. So they do a lot of it is the fun to be involved in such a venture. Of course, there are also many risks you can think of, especially investing as a business angel in areas like Somalia. So business angels, because they know so well how to operate a business, they very well understand the risks of investments. They understand that they sometimes operate in areas where there's a different legal framework from what they're used to, so that they need to adapt to that. Yeah, they understand that they commit their time to make a business success, and this is also, of course, to discuss with the entrepreneur how much time do you want to invest in a business. Maybe your time is limited because you have 10 other investments, but maybe you want to dedicate a lot of effort and energy into growing this business. Another risk for business angels is the relationship with the entrepreneur, because you're really entering a long-term relationship with such a person. It's almost like getting married, maybe a little bit less heavy, but of course you need to share the same vision of the entrepreneur about where the business wants to go, and you're closely operating together. So that's why this is important, and especially at the end of your investments, interests may become different, because you perhaps at a certain point want to sell your investment. Perhaps the entrepreneur needs to buy back the investment, but wants to buy it back for a lower price than the price for which you want to sell your investment. So yeah, it takes time and energy to manage your relationship with the entrepreneur. Of course, your reputation is at risk as well, because you're moving into this venture. And another risk is the dilution and reduction of influence, especially once more investors are needed in a company. Yeah, your share may dilute. However, it's not all about risks. Yeah, as I said, a lot of business angels invest in businesses because they enjoy doing this, truly. So they enjoy to be part of a new business venture, to see the challenges, to help an entrepreneur grow the business. I think it's almost like a lifestyle for some business angels to do these kind of things. They want to do something back for other businesses, to bring in their own skills, their expertise, their finance that they can miss. Important matter, yes, I just mentioned, is the trust in the person. So especially for starting companies, the entrepreneur and the management team are really crucial. As an investor, do I trust this person and this team? Are they the ones that are going to make the business a success? If you doubt about that, then you shouldn't do it. But if you feel that this is the right team and you trust the team, then there's a great opportunity. And a lot lies in the complementarity. So what can you add to the company next to the money? That's an important factor for business angels, and that's also a reason for being involved. A little bit about the Somali Agri-Food program that we are conducting. This program is funded by IFAD, that's the International Fund for Agricultural Development. As Colette already mentioned, they're based in Rome, UN-related entity, and they're very interested in developing and testing models, yeah, through which diaspora can be involved in developing developing the economy of the countries of origin. And this is one of those projects that they wanted to initiate. So with this project, we're actually setting up a structure through which diaspora can invest in companies back in Somali region, and we're actually piloting this. So we see this as a pilot, and we hope that the project will result into a kind of sustainable structure for this. The parties that are involved in the program are BID Network, Hirda, Collett Consultancy, and Shurako. I'll explain a little bit about the task division later. And the project started in 2013, when we did research mainly to test if there's interest among diaspora to invest in businesses. And since spring this year, we started to promote the program, and we started to receive business applications. So from now on, yeah, we're open, and entrepreneurs can submit their business plans. We're looking for investors.
and our fund is ready to co-finance. I'll explain more also about this. So task division, Heerda and Collett Consultancy are involved through their local offices in the identification of businesses. Heerda takes up this role for South and Central Somalia, and Collett Consultancy in Somaliland and Puntland. So they're trying to find as many entrepreneurs as possible with interesting business propositions in the field of agriculture, fishery, food processing. And they're also trying to find investors. Apart from that, they're involved in the business plan review, the support of entrepreneurs, training of entrepreneurs locally, and they'll be involved in the monitoring of the businesses that receive finance. We have Shirako involved for the fund management, because the program comes with a matching fund. That's their role. They will take care of due diligence of businesses, and they're also involved in the monitoring. And BitNetwork is responsible for project coordination, the overall project coordination, as well as business plan review, training and support. We will select the finance-ready business propositions, and we are responsible for the investor matchmaking services, as well as coordinating an investment committee for the fund. So what does the program do? Main targets are to facilitate access to finance for around 15 to 20 SMEs operating in agriculture, food processing and fishery, or heavily impacting rural areas. The businesses should have a clear growth potential, be profitable, and they should operate in either South and Central Somalia, Puntland or Somaliland. So this whole region is covered by the program. And another objective, apart from realizing these 15 to 20 matches, is to leave behind a sustainable infrastructure so that this process can continue also after the project, which only takes 4 years, is finished. The role of diaspora is, I believe, crucial in this whole process, because of the large amount of remittances that is now being sent back to Somalia, and we see an increasing flow of diaspora investment in the region, and I believe this is a great opportunity also for this program. Diaspora could serve as business angels, in particular because of their extensive knowledge of the market, knowledge of the culture, knowledge of the legal system, financial system, their networks in this region, which are long-term networks. And apart from the profit motivations, I think a lot of diaspora has kind of social motivation to do something back for the country of origin, or the country where there are so many linkages still. So that's why I think diaspora is naturally very well positioned to be business angels. Finally, perhaps most importantly, is the co-financing opportunity via the IFAD Matching Fund. So what we're looking for basically are informal investors who are interested in investing these kind of companies, who would like to contribute your own knowledge and skills, or your own network, who would like to invest around $10,000 up to $100,000 individually, or also in a group. That's another option, of course, to collect investments and to invest together. You need to have some affinity with investing in these kind of SMEs, so you need to understand what it takes and what it means to invest and to take this risk. The IFAD Matching Fund, what does it offer to investors? The IFAD Matching Fund is a fund actually to stimulate diaspora investment, and it's structured as such that it can contribute 40% of the financial needs of an entrepreneur for his or her growth plan. The entrepreneur would then need to invest 20%, and the external investor invest 40%, and that would be in equity or in debt. So you can find some criteria. We'll hand out a one-pager about the fund after this talk, but the idea is that the entrepreneur invests 20% in cash or in-kind contribution, which is directly related to the growth plan,
And the fund can then support investments mainly in assets such as machinery or equipment, but also to an extent in working capital for the business. So how does this work? If you are interested after today in becoming an investor or being involved in this program, you can sign up with our investor matchmaking services and indicate what your preferences or your interests are as an investor. Even if you don't know this yet, so this is actually Laura you should talk to. If you don't know it yet, we can talk with you about this and try to get your investment interest clearer. We'll then propose you investment opportunities that we have from the program, but it may also be the case that you as an investor know an entrepreneur you would like to invest in, then this entrepreneur can sign up for the program, work on his business plan, and you will come in later again to actually invest in this entrepreneur. So that's another option. We'll then support you in the negotiation process, and we also support the entrepreneur, so we are kind of neutral in this role. We're trying, it's in our interest that investments are made, basically, but that they're made in a good way, so that both investor and entrepreneur feel comfortable with the investment. And we can support you in this process and in drafting the documentation. So you would first draft the term sheet, and then Shirako would come in to assess the whole proposition by conducting a due diligence. So that's a kind of research about the company to verify if the company is really ready for this investment. And based on this due diligence, the proposition, which includes the component of the business and which includes the component of the investor, would be presented to our investment committee, which will then decide on behalf of IFAD and the fund whether the matching fund is going to co-invest in the investment. So then you sign your financial agreement and you disperse the money, and as an investor you're responsible for the monitoring of your own part of the investment, and the fund is responsible for the monitoring of the part of the investment being done by the fund. If you'd like to know more, please have a look at our online portals. You can find more information here. And in any case, you're most welcome to either talk to us during this session, but also contact us afterwards. And if you send an email to matchmaking@bitnetwork.org, either Laura or her colleague Marijn will see that message and get back to you. I think at the end of this presentation we'll have a Q&A, so we'll then probably have more to can explain more and answer any questions that you may have. Yeah. Thank you. And thank you, Anne-Marie. I think it was very clear, and as she said, the questions will get in a proper time, and then we can ask them. And please prepare very well if you have any, if you need any elaboration or whatever. So I think that will be okay. The presentation, one of your presentations was that 1.2 billion. The remittance of the diaspora. That is only the formal one. That is the formal. Yeah, you have informal circuits, and also those who are going back home. They took money also with them. So 50% of GDP is just, I think, estimation. I think it's more than that. So that is also really the value of the diaspora, and we need also to acknowledge. So always we departure our weakness. So. And let us shift the mindset and departure our strength. That is what we call our strength, is that we are sending back home 1.2 million according to World Bank. But that is more. And I would like, because we are already late on time, and I would like to invite Samakap Mahmoud Ali. And he has a brilliant idea that he was working for last few years. And he went back home, he visited, he saw it, and still he didn't give up. And that is really a reason that we invited Samakap. And then he will share with us. And the floor is yours, Samakap. Welcome.
waxaan meesha usoo istaagay inaad kala hadlo weliba dadka u diyaar ah inay muxuu ahaa dhinaca beeraha inay business ahaan wax ka bilaabaan Soomaaliya oo projectyaashooda lagu arkay website-ka ay soo geliyeen projectyaal aad u fiican ayaa ku jiray inta badan aad u fiicnaayeen waxaan rabaa inaan dhowr minute un idin sheego dadka waxay tahay inaa iska ilaaliyo haddii ku saabsan tahay projectyaasha agriculture ee Soomaaliya laga qabanayo waqti badan ayaa hadda arrinta ku mashquulsanahay sanadka hore xitaa Soomaaliya aaday area badan ayaa soo wareegay waxaa soo arkay beero badan beero xitaa muxuu ahaa projectyaal Europe laga bilaabay oo 3 sano 2 sano gudahood kuwa xitaa dhowr bilood gudahood ku istaagay markii ay dhamaatay lacagtii la soo diray ee ahayd in wax lagu bilaabo arrintan hadda iyo muxuu ahaa mashruucan hadda laga hadlayo waxay ugu fiican tahay maaha project lacag lagu siinayo oo lagu dhahayo wax ku qabo markay ka dhamaatana dee okay alla yaclam waa waxa adigu xitaa xoogaaga iyo lacagtaada iyo aad gelinaysid oo aad rabtid inay muxuu ahaa in loo arko maaha project ahaan waa business ahaan haddii marka sidaas loo eego faa'iido ka badan ayay leedahay projectyaasha inta badan la qorto oo lacag lagu raadsado oo markastana lacag loo sii baahan yahay inay sii socdo haddii dhinaca beeraha la eegana waxay tahay Soomaaliya in dhowr shay la iska ilaaliyo waxay tahay kale in la iska ilaaliyo Soomaaliyeed waxaan aqaanaa inaa muxuu ahaa wax kasta aad bilaabisid inaa yaa maxaa la yidhaha keeping it close this by house hour inaad ku koobto inaad ku koobtid un adigu familigaaga dadka taqaanid xaafadaada magaaladaada dad ayaa arkaysaa magaalooyin degan lagu talagelin dhul lagu talagelin in beero wax beer ahaan lagu sameeyo dhan oo bisraba inay projectyaal iyo wax ka bilaabaan markaas arrintaas oo kale ayaa tahay in la iska ilaaliyo haddaa rabtid daacad run kaa tahay inaa muxuu ahaa dhinaca beeraha business ahaan u gashid wax ka samaysid inaa serious u eegtid si run ah waxa u baahan tahay dhulka u baahan tahay dadka u baahan tahay saacadaada u baahan tahay qalabka u baahan tahay inay ka muhiimsan yihiin meesha u dhalatay iyo dadka taqaanid iyo muxuu ahaa sida wax loo sameyn jiray iyo xitaa in la iska ilaaliyo muxuu ahaa sidee baa sidii ugu dhib yareed oo ugu waqti koobneed arrinteeda u fulin karaa taas waxay ku saabsan tahay oo kale waxay noqon kartaa sidee baa muxuu ahaa sida ugu dhib yar ama ugu waqti yar lacagta u heli karaa aan wax ku bilaabi lahaa marka anigu waxaa dhihi lahaa dadka entrepreneurska oo muxuu ahaa raba inay dhinaca beeraha wax ka furtaan business halka galaan projectkaaga markaa qoratid arrimaha kugu muhiimsan aragtid inay muxuu ahaa dee kaga duwan tahay waxa hadda sida dhinaca waddankeena hadda wax loo beerto inaa xataa waqti u qaadatid fiirsatid raaditid sidee baa waxaas Soomaaliya uga heli kari lahaa haddayna oolin iyo dadka shaqaalaha xitaa haddaa heli kari lahayd sidee baa wax tababar loo bari kari lahaa si ay arrintan u fahmaan oo igula wadaan marka iyo in la iska ilaaliyo muxuu ahaa maxaa la yidhahaa irrigationka oo kale haddii la bilaabo sida muxuu ahaa beeraha loo waraabiyo biyo dhulkeenu ku yaryahay kolba oo muxuu ahaa bilaa macno la iskaga daadinayo ileen waa teknikyaasha ادخل ناخذ لا يا markaas ina muxuu ahaa ina waqti loo qaato oo si fiican looga fakaro iyo waxa ugu muhiimsan tahay in laga fakaro dhulkeena waxa laga beero maaha inuu ku koobnaado waxa anagu u cuno ama waxa dadkeenu u cunaan anagu kolba xitaa haddii dhinaca beeraha business ahaan laga galo oo dadkeenu wax u taraso suuq u furaso shaqooyin u furaso waxbarasho dhan u furaso xitaa tahay in laga fakaro sidee baa muxuu ahaa waddanka lacag u soo gelin kari lahaa export kale marka laga hadlayo waxa eegi kartaa regionkaaga haddaa meesha wax ka asaasday inaa eegtid xitaa sidee baa suuq ahaan waddanka oo dhan u geyn kari lahaa sidee baa muxuu ahaa waddankeena umaha xitaa jaarkeena Ethiopia Kenya regionka oo dhan u geyn kari lahaa even xitaa Europe inta badan
waxaa laga baqdaa warqadaha iyo certificationka iyo waxyaabaha loo baahan yahay si aan muxuu ahaa waxa waddankeena laga soo saaray in dibadda loo keen kari lahaa bas intaa muxuu ahaa businesskaaga markaa soo koobi lahayd ilaa arrintaasaa ka baqanaysa waxaa ka fiican inaa muxuu ahaa raadsatid dadkii dad kula saacidi kari lahaa opportunitieska kula saacidi kari lahaa ama organizationyaal ha ahaadeen ama shirkadooyinka ha ahaayeen ama hay-adooyinka ha ahaayeen sidii waxaas fulingeli kari lahayd oo waddankeena xitaa hadday noqon lahaa waddan muxuu ahaa wax xitaa hadday dhinaca beeraha noqoto wax soo saara oo exportkeeya oo xitaa waddanka gudaha lacag ay ka soo gashay marka anigoo lahay sidaa sheegay ideyaal badan ayaa ka haystaa qofkii u baahana oo xitaa business ahaan qortay oo business plan raba inuu meesha buuxiyo oo saacidaad u baahan ama information kale u baahan fadlan loo soo xiriira marka intaas kusoo koobay samaka waxaa noo sheegtay waxaan iska ilaalinaya waxaan rabnaa inaan wax yar nooga daabayo fikirkaaga ahaa modernizationka ahaa taasaa hilmaanta modernizationka waxaa tusaale ahaan usoo qaadanayaa gobol Ethiopia ku yaala oo muxuu ahaa adigu iska dhulku kale iyo hawada iyo ahayd sida Soomaaliya oo kale isku dhul waaya marka beero may ka jirin marka waxa la sameyn jiray projectyaal oo la bilaabi jiray ama dhinac beeraha ku saabsan ama dhinaca ariga ku saabsan oo marba dhici jiray marka nin aan isnaqaano oo muxuu ahaa raabo banka u shaqeyn jiray oo hadda pension galay marka isaguna xitaa fakar ayuu ka haystaa dhinaca beeraha marka muxuu sameeyay intuu aaday ayuu wuxuu baray techniqueyaal badan cusub oo hadda kale ka soo qaad drip irrigation oo kale hadda waxa ka hadlan sida beeraha loo waraabiyo inta biyahoo dhan iska daadin lahaa ama dhulka dib lagu soo helo ama foostooyin lagu soo qaaday drip irrigation kuma taqaana waa tumbooyinkan dhuudhuuban beeraha sidaa u agmaraya oo marba geedka un soolkiisa wuxuu u baahan yahay un biyaha u baahan yahay un marba dhibic ku siinaya adigoo dhulkii oo dhan ayaa arkaska iska qalalan iska Soomaaliga waad qana dhulka iska ciidiyo qalalan bas geedadkii oo baxaya maxaa dhacay inta ciidaas oo dhan biyaha la iskaga daadin lahaa geedka uu inta u baahan yahay ayaa la siinaya marka adoo biyo ka yar isticmaalaya wixii badan ka soo baxaya xitaa waddankan xitaa waxa la yaqaan waxa ka hawada hawo qeyr caadi ayaa dhacay marka waliba markii muxuu ahaa geedadku aad u yar yihiin boqolkiiba 80 biyaha la waraabiyo waxay ku dhamaadaan si ay muxuu ahaa isku dayayaan inay toos u koraan geed kasta waa sidii geed ilaahu isagu abuuray geed kasta wuxuu isku dayayaa inuu toos ahaan u koro markaas biyaha la siiyo la waraabiyo boqolkiiba 80 wuxuu isticmaalayaa inuu muxuu ahaa toos u koro ama inuu weynaado bas ma geenayo muxuu ahaa dhinaca xubuubkii kaga bixi lahaa marka geedkaas oo kale hadii muxuu ahaa la support gareeyo ama xitaa ka soo qaad hadii muxuu ahaa maxaa la greenhouses mataqaana bahalaan iyo holan lagu isticmaalo kale dhalooyinka la daboolo maaha kasaska ha mataqaana beeraha marka banaanka loo marayo kuwa ku yaala waxba lagu daboolay iyaga waxa lagu daboolay waa dhalo dhaladaasna waxay ugu dabooleen kuleelka ay u keenaysaa bas dhinaca Afrika marka la gaaro la aado waxa jira muxuu ahaa waxa lagu daboolaa waxba plastic marka waa plastic sax kuleel ma u baahna bas plastickaas lagu daboolay wuxuu ka qabanayaa hawadu ka qabanayaa dabeesha badan bakteeriyada iyo waxa soo gaari kari lahaa iyo qoraxda kuleelkeeda ayaa xitaa muxuu ahaa plasticka sida u kala adag tahay kuleelka ayuu ka kala qabanayaa ee saaidka ku noqon lahaa iyo biyahana geedadkan ay qoraxda ku dhacaso maanta dhan biyihii la siiyo dhan cirka aadayaan maxaa la yiraahdaa fardaan marka plastickaas markay ku xidhan yihiin biyihii habeenkii korba maalintii dhan kor ay saadeen habeenkina isla meeshii ku soo noqonayaan marka hadda wallahi waxa soo arkay beero qeyr caadi ah oo ba hada indhahaaga ku aragtid aba Ethiopia u maleynayba inay muxuu ahaa Afrika oo kale sida in hadda dhinaca sidaas oo kale wax laga beerto هذا أركز حتى دكان يلا يا جرام وها ألبرتان وكذا وخضارتي سكسو يبشر إيريا ده صح هذا صار أركي وحتى إسلا تكنيكياشن الاستعماله ما دام حتى يجي حتى أقوم بهم تهاي وحاهمتا إن محوها شير مستبد كيمي أما عذر كذا ومحوها بيرت هذا يا وحبيرين سكتكاح ومين ما دام حتى إسكيل هذا النسيد
marka xitaa haddii la fiirsado caafimaadka cuntada waa taqaanaa kulli waxaa lagu isticmaalaa fertilizations iyo chemicals oo dee geedadka si ay u koraan si looga ilaaliyo haddaa dhinaca hore aa ka ilaalisid inay muxuu ahaa bacteria iyo germs iyo waxyaabaha geedadkaaga soo gaarin chemicalska aa isticmaalaysa xitaa aadaya hoos usii aadayaan taasoo xitaa caafimaad keenaysa xitaa waxay keenaysaa inay muxuu ahaa lacagta aa beerta gelinaysid kiilo kasta aa waxaa soo saaraysid lacagta aa gelisay inay hoos usii dhacayso oo profitkaaga kor usii badanayo waxaan jeclahay inaan Saadiya u yeero oo presentation soo diyaarisay Saadiya diyaar ma tahay Saadiya waa ardayad Soomaaliyeed istaashay waxay ku maraysaa Diaspora Business Center waxay barato iyo waxbarashadeeda kulli iyada noo sheegi doonta waxaa ahay ardayad oo international business barato sanadka ugu dambeeyay sanadka bilowgiisii sanadkii hore dhamaadkiisii waxaan sugay research oo gobolka Gedo qaas ahaan dhinaca webiyaha ka baxa webiga Daawo iyo webiga Juba beerooyinka ka baxo iyo dhibaatada dadka beeraleyda meesha jooga dhibaatada ku haysato isalaha mayna suubin karaan tababarna may ka helin warshadana ma jiraan oo waxaas ku saabsan oo caawiyo laakiin hadda hay'ado baa jiro oo Food and Agriculture Organization of the UN oo caawiso maadaama ay dadka dhan gaari karin qayb ay caawisaa laakiin beeraleyda badanaa dhib baa kasoo gaaro oo waxaa ka halaabo fruits iyo vegetable badan iyo galleyda ay abuurtaan iyo waxyaalaha oo usoo go'o badankood ay ka halaabaan waxa oo ugu baahan yihiin dhulka oo dhinaca developmentka ka caawinayo ee aad ugu baahan yihiin beeraleyda ka qayliyaan waxaa waay sida seedska kuwa lagu abuuro dhulka marka soo baxayso ay u baahan yihiin badanaa waxay ka dalbadaan Kenya mise Ethiopia waxay ku qaadataa maalmooyin inuu imaado ninkii beer badan abuuranayo oo rabo wax badan inuu abuurtana laga yaabaa inta loo keeno inaysan ku filneen qarashka ugu imaanaysana laga yaabaa inay lacag badan tahay oo isku filneen oo awoodin in wax badan abuurto marka waxay keedsadaan wixii oo u go'ay harvestkii hore ee isticmaalaan qaarkood kuwaan awoodin kuwa qaarna caawimaad ay ka helaan dhinaca hay'adooyinka saan u sheegay marka qof hadda jiri lahayd suppliers oo dhinaca Gedo gobolka Gedo qaas ahaan meelaha beerooyinka ka baxo wadamada Baardheer mise Doolow mise dhinaca webiyaha xigo mise magaalada Balaxaaw naftirkeeda oo supply garayso seedska ayagana waqti uu save garan lahayd and time ka u save garan lahayd and lacagtana uu yaraan lahaa cause transport cost ka baxo iyo time kooda in raadiyaan way wadan is aqooni suppliers ka raadiyaan oo ku caawiyo waxaas and tan lamid waa agrochemicals hadda magaciisa ka hadlay hadda badanaa beeraha meesha ka baxo wadanka insects iyo xeri kabajaan iyo waxaas galo so ma haystaan wax oo chemicals dilo so sidaan u sheegay Kenya iyo waxay ka dalbadaan Ethiopia waa dadka awoodo dadka qaarna ma awoodaan beeraleyda badanaa ma awoodaan soo xoogi ay beerta geliyeen beeraha markay soo go'i rabaan xoogi ay geliyeen kama helayaan ilaa waxa badanaa waxa cunaayo bahaladii waxa soo baxana caafimaad ma aha ilaa wax oo bahalo ku jiro oo unhealthy way hadda la isticmaalo waxa laga yaabaa in dadka ay ka gadaan mise dadka cunaan inay cudur hadhowti u keenaan so hadda jiri lahaa company oo agrochemical manufacturing suubinayo oo gobolka gudihiisa so way u baahnaan lahaayeen oo caawin karo ayadana wax ka faa'iidi lahaa beerahana uu abuurkuna u badnaan lahaa wax badan usoo hari lahaa ay si dibadda usii dhoofiyaan export iyo wadamada kale ka sii iibiyaan tan kale waxaa waaye matoorayaasha beeraha lagu suubiyo matoorada badan waxay ka dalbada ayagoo second hand lacag badan waa laga siiyaa markay ka halaabaana meel loo raacan malaha spare parts meel ka gataan ma laha bahalkana ma cusbeen oo wuxuu ahaa second hand waxa hore loo isticmaalay dibadaha marka waxaa jiri karo kompaniyaal oo keeno traktayaasha iyo matoorayaasha biyo soo jiido iyo qalabka dhan oo lagu abuuro beeraha oo suubin karo oo caawin karo dadka beeraleyda
mise kirayn kara hataa qofkii awoodin inuu gato laga kirayn karo 10 maalmood mise intuu beertiis abuurna hadday beer weyn tahay mise 2 bilood mise 3 bilood marka tan ku xigta waxaa waaye yaa sida u sheegay beeraha markay soo go'aan waa alaab waxa soo go'o yaanyada camal iyo cambaha mooska ma joogsan karaa way halaabay waa perishable goods so hadda maanta la soo gooyo bil wax bil lahayn kara ma aha laakiin warshadaha hadda dhulka la geenin lahaa warshada laga suubin lahaa warshadaha way qalajin lahaayeen waxaa laga suubin lahaa juice oo la cabo waxaa yaanyada camal comboyna lagu shubi lahaa so food security ka jiri lahaa wadanka dadkana gaajo mays arkeen wax ka badan way kasoo bixi lahayd oo dibadaha laga gado oo wadamada noo dhow Kenya iyo Ethiopia laga iibiyo so I think hadda companies camal warshadahaas laga furi lahaa xagga dadka wadanka joogana wax bay u tari lahaayeen qofkii ka furtana wax uu ka faa'iidi lahaa ilaa waa ganacsi oo wax loo baahan yahay waa oo la maalgashan karo tan kalena waa transportation itself beeralayda badanaa marka transportation marka ugu horeyso markay beerta soo fashaan ay rabaan inay diraan oo dib Muqdisho iyo loo diro baabuurtay saaraan kartoon loor bay ku guraan loorka bahalka inay karto lagu guro waayo sida sawirka soo saaray alwaaxyada iyo waxaas laakiin dadka beeralayda cilmi umaysan laha iskoolna may aadin waxaasna ma ogaan loorarkay ku guraan loorarkii alisdul saaraa marka meesha tagto intay direen aquoto bita la gadi kara inta kale waa khasaaro so marka taxigtana saleska badana lacagta qiimaha ay suuqa ka joogto Kenya kuwa ka iibiyo dhinaca Madeira iyo Ethiopia dollar Ethiopia qiimaha ka joogto oo dadka meesha jooga qiimaha ku iibinayaan xoolo beerahooda iyo wax beerahooda ka soo go'o harvest beerahooda ka soo go'o iyo qiimaha ayaga ay ku iibinayaan isma laha ilaa ninka beeralayda wuxuu leeyahay waxa way ka soo hareen iska gad oo bedelku ka qasaarin hada $20 laga iska sii hada $10 laga iska sii laga yaabaa inuu $50 joogo in oo skills kaas la baro oo la cilmiyeeyo oo la tuso in qiimo leeyihiin ay dhigan karaan hataa duu gadan waayo oo berina gadi karo misana processing ku suubin karo tan ugu dambaysan waxaa mechanics sida aan ka hadlayay matoorada iyo waxaas matoorada dadka haysto oo leh waa matoorku waa sidii baabuurku halaaw badan yahay qof suubiyana magaalada ma joogo gobolka ma laga helayo so waxay suubiyaan waxay tagaan Mandheero mise dollar Ethiopia xuduudda meesha la leeyihiin oo u dhow yihiin ee qof ka doontaan qofkaas waa in qarashkiisa u bixiyo transportkiisa oo ku keenay meesha laga yaabo qofka inuu 2 maalin 3 maalin magaalada joogo waa inaad bixisid 3daas maalin qarashku magaalada ku joogi lahaa lacagta kugu suubinaa laga yaabo inay double tahay hadda qof magaalada cilmigaas leh hadduu joogi lahaa oo ku suubinaa skillkaasna leh so taasna wax loo baahan yahay meel oo skillska lagu furo lagu barto loo furo mase oo la geeyo laga furo meel oo garage oo mechanic lagu suubiyo engineers iyo mechanic iyo tractors beeraha maalgelinta hadda dhulkaada maalgelisid economical growth ka dhacayo economical growth economical growth economical growth garanayo job opportunities usoo baxay dhalinyarada shaqooyin badan furmaayo ilaa waxyaalaha badan oo wax cilmi u baahan dhalinyarada badankood ma aha laakiin inta 50% more than 50% umaleeya waxay ka barteen ilaa high school waxay ka barteen wadamada u dhow Ethiopia iyo Kenya so dhalinyarada hadda soo kacaysa cilmi la'aan ma hayso waa dad wax soo bartay laakiin shaqo la'aan ay hayso hadda loo furi lahaa warshadaas camal oo packaging business transportation mechanics iyo collegeala jiro dadka baro laakiin oo ku saabsan carpentry waxaas laakiin qaybaha kamid ee lagu baro high school yaasha qaar bachelor degree haysto oo shaqooyin haysanin marka dala for processing companies iyo mechanics iyo I think in a job opportunity u tahay dhalinyarada ee dagaal conflict reduction
intay dagaalku ku sii jeedaan shaqadooda ku sii jeesan lahaayeen oo dhulkooda wax tari lahaayeen colaada ay yaraan lahayd more focus waxay siin lahaayeen shaqadooda instead of dagaalada gelin lahaayeen iyo bad image-ka aqliga maskaxdoodii waxaa soo gelaysa waa ku maasantihiin dhegeysiga ay dhegeysateen qofkii su-aalaysana waxaan rabaa hadda inaan Cumar iyo groupkiisa aan floorka siiyo si ay iyagana nooga sheekeeyaan Cumarna uu nooga sheego maadaama uu nin businessman yahay wadanka degan diasporadana muddo ku dhex jiray in uu noo sheego sida ay diyaar ugu tahay diasporada inay business wadanka ka suubiso iyo wixii already hadda ka suubinayaan runtii maanta galabta ilaahay maadis waa fursad qaali ah in guuleed iyo nadsom halkaan ay nagu casuumaan iyaga oo nooga sheekeynaya fursad qaali ah oo maalgashi ah runtii hadalkii hadda u dambeeyey oo uu ku dhawaaqay ayaa dhiirigeliyay oo ahaa in ummaddu markay isu tagto fikradaha isdhaafsato in ay wax weyn gaari karto waxaan rabaa marka inaan laba arrimood baan ka sheekeeyo qayb company aan sanad iyo bar ka hor halkaan ka bilaabay oo alaabaha ka dira exporti ah una dira dalkii hooyo runtii markaad shaqo bilaawdo oo aad hawl bilaawdo waxaa kuu soo baxaya waxyaabo badan oo aad la tacajabto oo dadka Soomaaliyeed iyo sida ay maaragtay qurbaha fikirka hadda uu u bislaaday oo qof walba uu ku fikirayo war fursad ganacsi wadanka maxaa ka jira waxaan idin sheegayaa inta arrinta aan wadnay waxa ugu badan oo aan dhoofino inay yihiin cagaf-cagafyada beeraha kuwaas oo wadankan Holland laga diray ama ha loo diro Puntland Somaliland iyo South India kale marka runtii fursadda isku dayga ah iyo dadku inay wax qabtaan waa fursad aad u weyn oo qof walba ka gooxaysa sometimes inaan runtii fikradaha isdhaafsano oo la iska warhayo isku xiraashi waa tanguud oo naga warqana laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inay maaragtay mar loo timaado runtii waxaan rabay G International shirkadda aan sanadii bar halkaan ka bilaabnay markii inta cagaf-cagafyada ka soo tago waxaan kaloo lagu guuleystay qofka Soomaaliga ah oo halkaan degan qof walba guriga Soomaaliga waxaa yaala dhar ama asiga uu isticmaali jiray dharkaas oo laga yaabo in hay'adaha wadankan maxalli ah inuu soo jiray waxa lagu guuleystay dharka inta baakada lagu rido qofkii baakada uu keeno hadduu Puntland u dirayo hadduu Somaliland u dirayo iyo hadduu Soomaaliya inta kale u dirayo inay gurigiisa la gaarsiiyo runtii iyaduna waxa waaye oo wax aad u weyn dad badan oo masaakiina ayaa runtii shaqada la qabanaya arrinta ka soo dacooyay awal lacag bay ku ekeeda hadda in qofku ku fikiro shaarka uu maanta asagoo maaragtay iska dhigay in qofka kale masaakiinka gaarsiin karo runtii iyaduna waa wax weyn oo ganacsiga halkan operationka laga wada ay tahay guud ahaan Soomaalidu ganacsigeeda halkan ay ka wado runtii waa ganacsi aad maaragtay u ballaaran runtii dhiirigelin leh inta kadib marka waxaa kaaga dhalanaya fikrada ah dadka halkan jooga inay ku fikirayaan war sidee wadanka wax looga qabtaa sidee maaragtay muxuu ahaa maaragtay fursadaha wadanka ka jira annagoo hadda aanan lahayn organisationno iyo fursadihii wax nooga hadla gobolada qaarkood weli ay dhibaatooyin iyo mashaakilo iska jiraan haddana mar walba waxaa soo baxaysa wax annagu aanan qabanin inaysan xagka soconin taariikhan markii dib loo sii raaco wadamada sidoo kale burbura ama ay dhibaatada ku dhacdo waxaa mar walba wadamada bedela dadka diasporaha dibadda soo baxay ama ha ku bedeleen aqoontoodii ama ha ku bedeleen in inta iyagu isu tagaan wax investigareeyaan ee wadanka dadka ku celiyaan runtii kulley fursadan guuleed iyo gruubkiisa iyo wadaan waa fursad qaali ah weliba ku saabsan xagga beeraha marka hore waxaan rabaa kulley arrintaa hadda sanadkii barka oo G International halkaan aan wadnay runtii muxuu ahaa xagga Soomaaliya marka hore halkaan waxaa adkayd qofku sida wax u diro Dubai la sii mari jiray Dubai markii waxa la geeyay xaggaas laga sii qaadi jiray oo qolooyinka loo sii dhiibi jiray adigu dhib badan ka imaan jiray laakiin hadda leemanka barbara toos u taga waa leeman badan oo toos halkan uga baxa saddex way kadib ruux adartay barbara toos u yaala leemanka u taga Muqdisho iyaguna qolo company ah bilaabmay 4 ilaa 5 week wixii halkan ka dirto toos ay Muqdisho yaala
sidoo kale Puntland waa noocaas oo kale inkastoo hadda line toos oo Puntland ku xirnaa soo jirin laakiin iyagu ama barbaray ka maraan ama via Dubai baa la sii maraa iyadoo toos bay u tagaan xagga Kismaayo laba nooc waa loo maraa in Muqdisho loo maro iyo in Mombasa intii loo maro iyadoo xagga la gaarsiiyo intaba iyaduna runtii wax aad u weyn waaye waxa kale oo jirta Soomaalida maadaama ay meelo badan ku baahsan yihiin in ganacsigan hadda muxuu ahaa kelinka shanaad ee Ethiopia ka jira iyadana loo maro via Djibouti oo saa iyadana loo gaarsiiyo runtii intaba waxa weeye wax aad u badan oo qofka shakhsiyaad dadka isu abaabuleen oo waxa ka jira ama kambaniye ah ama maaragtay muxuu ahaa qof ah oo asagu uu yiraahdo waxaasaan meesha ka wadaa arrintaasi way bilaabatay si fiican bay ku socotaa inta kadib markaan u soo noqdo arrintii jeenta halkaan aan uga baxo waxa shakhsiyan anoo kamid ahay oo ka imid South Soomaaliya meesha la yiraahdo muxuu ahaa dhulka beeraha meel la shalamuuda ku dhashay runtii dalka Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed waa uu kala duwan yahay oo wuxuu kala duwan yahay wax soo saarka gobolba wax uu lahaa maartay laakiin mar haddii beer laga hadlo waxaad moodaa dhulka xagga Southka ilaa iyo maartay Kismaayo laga gaaro dhulka Soomaaliya ugu beeraha badan u yahay waxa hadda Ilaahay xugmay oo aan ogaaday oo habeen wato Soomaaliya nin ganacsi intuu yimid waxaan rabaa inaan diro apple Soomaaliya wax apple ma laha fruitka meesha yaala Nairobi looga qaado waa la geeyaa hoteelada iyo restaurantiyada waxa ka soo baxa gudaha ma kobcsan Poland ayaan ka dirnay container fruit fiida apple ah markaas Muqdisho laga dejiyay markaas airportka Muqdisho asaas loogu qeybiyay hoteeladii waddanka ogeydeen waxa soo saarka hadda ka socda mooska ka soo baxa waa baabaasan yahay qudaartu ma kobcsana waxa jiray qofkii nabadda yaqaanay Soomaaliya fruit ayaa joogi jiray Soomaaliya fruit waxay hay'ad ama Soomaalita u dhaxaysay dadka wax soo saarka ah iyo dawladda mooska qofkii tabcay yaqaanaa waxa la yiraahdo waxa jira kunshiimo dawlad la yiraahdo lagu kobciyo dawladda bixin jirto dadka ka bijirtay waxyaabaha soo dhaw wax soo saarka soo baxa waxay mooskana anaga qudaarta aan soo dirnay Italia Germany Europe maarta laga cuno hadda waxay maraysaa in apple Poland laga qaaday Soomaaliya sababtoo ah qudaarta waddanka ma nagu filan wax soo saarka soo baxa maxalliga waddanka ma soo dhaafayo moosku waa yar yahay asagoo bisulo gudaha ka madoobaanaya waa waddankii wax laga soo dhoofin jiray runtii baahida jirto aad maartay beeraha waa leenahay dhulku waa leenahay haddii aad fiiriso kiliyadii beeraha way dugmeen oo maartay muxuu ahaa wax qabadki ma laha qofkii hadduu wax soo saaro qof caawinayo oo wixiisa export ugu samaynayo ma laha inkastoo weli beeraleyda ay xarbiyaan caawan uu nala joogo dadkii maartay Jambaluul iyo kulleeydan iga dambeyn doona jira oo dhulkii beeraha aad u sii sharaxi doona laakiin waxaan rabay inaan adigu siiyo arrinta iyada kulli annaga galabta waxay noo tahay arrin aad interessant u ah waxaan insha Allah rabnaa hadhow meeshii lagala xiriiri lahaa waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo is-organisareeyay oo runtii iyagu intay halkaan dhul ay lahaayeen cagafee ka gadeen qaadeen waddanka geeyeen almost wax soo saarka bilaabeen culaysyadii la kulmay culaysyadaas oo ay ka mid yihiin suuqgeyntii ay ka mid tahay maaragtay wax soo saarka laftigiisii muxuu ahaa ilaalintiisii ay ka mid tahay maaragtay muxuu ahaa waraabka laftigiisii oo aan muxuu ahaa kiliyadii qaarkood iyo webiga ku xiraa ceelashii laftigoodii wax soo saarkii matoorkii qalabka cagafyada laftigooda baahi baa ka jirta in laga caawino u baahan marka qofna waa qof beertii haysta almost dhex galay hawshii caawintiisuna maaragtay sheegan kala dhihi kara waxaasan u baahanahay runtii dhulkaasna waxaan isleeyahay haddii loo helo muxuu ahaa investmentiga u baahan yahay waddanka intiisa kale oo dhan oo caawinaya waxaan kaloo idiin sheegayaa Soomaaliya ganacsiga waxyaabo kale haddii ku kala tagtay ganacsi kuma kala tagin marka weli shaqadii Soomaaliyeed iyo isu tagii Soomaaliyeed wuu socdaa intaan nabayaho aan ku mashquuli lahayn waxyaabo kale aan ku mashquuli lahayn in arrinta la kobciyo runtii waa muhiim fursadan galabta jirtana waa fursad kulli runtii muxuu ahaa haddii aan annagu maaragtay la isu geeyo fikradaha iyo dadku waxa ay qabaan wax weyn laga qaban karo muxuu ahaa waxaan insha Allah ku soo gabagabeynayaa
in jaaniska meesha ka jira ragga dhalinyarada ah oo inta hadda anigaan hawsha ku jiray wax qabanqaabiyey almost 6 cagaf ayay gadeen halkan ay ka qaadeen dhulka beeraha koonfurta ayayna dhul weyn oo kira ka qaateen wayna shaqeeyaan oo almost hadda shaqooyinkooda dhex galeen waana diaspora adigu ingiriiska iyo holland ka tagay runtii muxuu ahaa una baahan dhiirigelin iyo in maaragtay muxuu ahaa wax lala qabto insha allah haddii hadhow shirka noo dhamaado kontaktiyada iyo kambaniyada iyo waxaan u baahannaha xiriirka maaragtay ragga in lala sameeyo ay tahay sababta waa ragga iyagoo hadda almost hawsha dhex galay iyada laftigeeda waxaa kasoo bixi kara dadka halkaan joogan intay isu yimaadaan la aasaaso muxuu ahaa rag kale dhulkii waa la heli karaa muxuu ahaa fursaddii waa fursad jirta si annaguna aan mar walba jaaniska yimaado si saxa looga faa'iidaysto in arrinkaa maaragtay muxuu ahaa si fiican loo taabto aada ugu mahadsantihiin dhegeysiga dhegeysateen guleed iyo nad soomana aadan maaragta ugu mahadcelinay dhalinyarada kale nin la yidhahdo awdhegli magacayna halkan ka sheegta ma rabin laakiin dad badan ayaa yaqaana magacaas asalaamu calaykum waraxmatullah magacii ammaantan qarinayo waa la sheegay waa qarxamisteen وبعدين السلام يا دمانتين كم سوى تلقين إن هذا كله لكن ركبة يقعد صدي أنا ما أحكش عليه واحد بعد لما هذا لما أنت والله شاقي ورقي يوري أي والله شاقي وحير هذين ما عليه دبعت ولا قهوة ولو أنكو كان عينين هذا يوري شاقي مقعيس أنا أقول لكن ما شفت يعني هذا هذا كله سمكاب أوكي نكاس وهذا اللي هذا كسومالي ده كنت عايزة قدمي وحيين يصير يشقيها ورجيت كانوا يشتري عمل هيك أصلاً أو يشتري واحد كلية سوماليا هل قبل كلية واحد كبح سوماليا واحد كبحه قبل هذا كفرين هذا عن سقيمين إن نجي نجتها لكن ورجيت كجودو حياهي هل كي واحد جوجان سمجاب هذا الوكر واجي أو أحد تطبع برجعت الله إيمانية وأنا من اللي جالسينين يلا عم برجعت كلا قمر العكتة بنات معناه هذا إسكعد هاي أنا هقفكي هوشي يقيني لو مجين هوشي مقام هوشي نحبه كل مات سابق اللي انت لكن قبل هذا الكوفرات وقبل هذا وجود دخل قبضن الصومالية شيء ساي حتى ودماذا أجنبي جاه لو جين جري بردكش كسب حسماني ما عم بدلا ناس الكشماش كيمد يسود وكب حي وحياة وبحي كسب حجيس كأفريقيا وقبل هذا الصومالية قدرت أي اللي جين جري فارو ومصر كترين جري لو جنجري ونلان مقع سودو كوبحي أسل كيس سيدا سواها هذه تاريخ هذه الرعدة سوماليا موسكا لغا سودو فيو أيا يرب لغا عنجري ما أنت نوحي جوبتها سوماليا إني قاجي كدرت ضدك عبارة هيستو ضدك أنا محبهين لكن مهمة وقوين وحيد هاي قوالله وقوين كونفورت الصومالي كويا وقوالله وحكبحا والأوجه تجابة كستر والقسمي حوله كسترماس مشكلة ده أقول ما أنت صومالي ده يستوى حتى هاي واحدة رجالة قالب كبيرة هذا يعترض سيدا يدك خاركوت هذا كذا واجيه مشينا دي يودقوي أو وجود بيسد يعترض صد سنة كور وأنت عند ياك وحلاقي يا مشينا خف هيستا أو كنت سنة جدا حدنا يوسن ولي سكوت ده يستار بارسين وها مشين كأو كذا قاجي تقني كذا يوم مكان أقوم تيدك هيستين أما خوف يقانا هوش إنه قطع نشأ كمان لكن وحنذكر عسنا هاي أنا جواد مدرسة وحنذكر عسنا هاي إني تهاي سوماليا وطن وحصل صار له وحنا كسر بحكام ضد كيسنا أي وحقون كان هذه أنا صلاة الجوار إن شاء الله هوسه والجوار كأوجو ريتسن هذه اللي يراده بيرهان جوار الصومالي كويا جوار كواحد مرة جوار اللي يراده بالشبله لأنه كسر حراء وبيجوا بس إذا قبل كذا واجسين لبدا وبي سوماليا ولا راحي وبي كلا إلا مجاو وبي سكير لكن لبدا وبي سوماليا ودن أي أنت ودحس لبدا وبي وهالك أيدوك بيرلي ذو يكبديه مركا واحد مهم إلا فهمه معناها كجرا سوماليا هي السدي أي دياسبرا أما دتك ودن كجوجا أي وحوي قبل هاي أقولتي أن ماشي جرين أو دتك أي كوي راتي waxbarasho laga soo baxa dugsi beeraad ama dugsi sare ama jaamacad beeraad waxay ugu dambeysay 30 sano ka hor
waad qiyaasi karaysaan marka in aanan meesha aqoontu ayaad ugu sii gadato ama aan ka dambayno 30 sano sidii aan ahaan jirin haddii adduunyada loo fiiriyana waxaan ka dambaynaa 100 sano haddii sidii hore loo fiiriyo marka ana hadalka idinku dheeraynin Soomaaliya waxa ka baxo waxyaalo badan waxa ugu badnaada muuska dad badan baa moos dhaha muus dhaha waxa la yiraahdo haddii aad taqaana Soomaaliya daatiin Soomaaliya waxa ka baxo 3 nooc oo muus mid la kariyo mid sidiisa lagu cuno mid sukaare loo sokor badan oo inta badan dadka badankooda ay ka sameyn jireen waxyaalaha aan hadda u naqaano jaamka oo kale aroodiyada la wasa marka Soomaaliya shay geed walba ka baxo liin baa ka baxo camba ka baxo babaaya ka baxo wax kasta ka baxo marka waxa anaga u baahanahay kaliya waxay tahay sida ay dadka badan noo abaabulayaan anu ma aan ogeyn maanta investment laga hadlay iyo maalgashi iyo wadankeeda dib loo dhistay dadka qaarkii way ku kaceen mar hore bay sameeyaan oo hawshu way ku jiraan dadna way ku kacay yihiin inay hawsha qabtaan oo way daba socdaan dadaal bay ku jiraan dadna waxay u baahan yihiin in laftoodaba la kiciyo sida anagoo kale waa dambeynaa in la kiciyo oo dadaalkana lagu daro marka waxaan rajaynayaa inaan hadalka idinku badinayn waqtiga aad buu idinku yar yahay fursadana ma aanan ka faa'iideysan inaan ka faa'iideysto baan u istaagay laakiin haddaan ogaan lahaa waxba mushaatashan aad iyo aad u mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay ما أقان أو دقيقة إنه مقعد رسمي هاي بس نانس نانس ويا نانس أوكي مركز هذا أو قلات إنه ويا روح دقيقة أد ما ستاي وحن ربائنا إلهي إذا كيس سو بنو discussion كينو هري أم سؤالي يو لو قبي قلنا مرتد أو نرجوكته marka waxaan rabaa xogaa yar inaan summarize gareeyo waxa aan isniri waxa soo dhacay oo presentationkii walba ku jiray ama kii samakaab ama kii sacdiyo ama awdheegli intuu hadda noo sheegay ama Umar in xirfadlayaashii Soomaaliya ay dhamaatay maxaa yeelay 25 sano oo waxbarasho ahayn ayaa jirtay tusaale rabaa inaan idin soo biyo ma aha kaliya beerahay haddeertaan muddo 6 sano laga joogo 7 sano waxaan bilawnay inaan fisheriga kalluumaysiga wax ka soo bilno maanta waxa jooga oo aan ka keenay Sri Lanka 28 kalluumaysato si ay dadkina wax u baraan waxa la helaynin badda ugu dheer Afrikada xorta ah baan lahayn hadii South Africa laga saaro maantana waxaad moodaa in aanan marmar meel kasta oo xeeb ah waxa lagu yiri hadda dhowr bilood ka hor xamar buu wuxuu ka joogay $9 kiiladii in ama laga waayaba kalluun laga cuno in laga waayo marka waxa soo dhan waxay ku tusaysaa 100 sano oo aan gadaal u jirno marka ma waxaan suubinaa inaan is eegsano is fiirsano Umar sidoo sheegay oo kale wadanka awal waxa dhici jirtay gaariga ka soo baxa Muqdisho ama koonfur ka soo baxa oo ama moskiliya looma qaado halkaas waxa la qaadaa digir beaniska waxa la qaadaa haruurkiisa sinti intii waxa soo dhan waa loo iibgeeyaa ama Puntland ama Soomaaliland marka awal waxa dhici jirtay in 5 dareewal isku bedelaan gaariga 5 dareewal in isku bedelaan qolo walba markii meeshooda la dhaafo in qof kala qabto maanta waxa dhacda gaariga meel kasta uu ka soo baxo ama ka soo baxo Boosaaso ama koonfur ka soo baxo ama Burco ka soo baxo hal dareewal baa wuxuu geeyaa meeshii uu socdo ama kismaayaha ahaato ama beled xaawaha ahaato ama meesha ku taal marka taas waxay ku tusaysaa in aan horumar suubinin barnaamijkan waxaa caawinaysa hay'ad la yiraahdo oo lacagta bixinaysa USAID ifadaysiisay ifadna markaa waxa ay barnaamijkan hirgeliya network waa ka shaqeeyaan laba dumar maanta xagga jooga iyagu markaa waxay raadsadeen dad consultant oo caawin karaya dadka loo gaarsiiyo xafiisyada wadankii marka laga furo oo kale dadka ay helaan meelo ay runtii ka soo gudbin karayaan barnaamijyadooda ama weydiin karayaan su'aalo anagu markaa waxaanu nahay dadkii fududeynayay inuu xiriirkani hirgalo la kalana talinayana waxyaalaha qaar barnaamijkii muxuu la soo qoray waxa qofkaas waxa laga yaabaa in sidaas malaha uu ka dhigo مليون هرتا ضد وانجاري وايو لا تريو هاي سيارة قف الجاري أو سكر عليها ورو كان حتى هذا يجو حتى جاري بتكو جاري واقع بنمشي مكان صوت بيو يو نحتوي عليه ودي على سمعتنا إن شاء الله
guddidaas hadda tula eegi doonta barnaamijyada cuntamaya kuwaasoo markaa urur kale oo shuraaka la yidhaahdo ka madax banaan intanba ayaa bixin doona hadda tula lacagta fund management oo noqon doona kuwa dadka la xisaabtami doona wiyaro adiga laga yaabay laakiinse waxa weeyaan waxaan loo sameeyay qof walbaba uu chance u helo loo gaarsiiyo lacagta aad u yar billion oo ka yartay lacag badan ma aha lacagtan dadkan soo dalbanaya ee barnaamijyada soo qoraya waxa weeyaan deegaanada Soomaaliya deegaanada oo dhan waxaana ay ku saabsan tahay beero kaliya maaha kalluumaysiga beeraha iyo xoolaha intaba weliba inta waxa dheer wax soo saarka cuntada oo dhan hadduu qof aan gebigiisuba lahayn beer oo aan lahayn xitaa xoolo oo aan lahayn meel xitaa deegaan kalluumaysiga uu rabo in dhibaataan haysatee Thailand nabarkiina iyo tamaandhada saaca wax ka qabto warshadu waxaa samaysan lahaa tamaandhada saaca beerihii ku soo qaadanayay isagoo noqda ma haba laakiin haddii warshada samaysanayo suuq u helayo uu soo qaadayo oo dhibaatadan ay dadka u shaqeynayaan laga reebayo walxamdulillah rabbil caalamiin marka wax soo saarka cuntada ayaa dhamaadka waxa la isku horimayaa marka la saadaaliyo ilaahay baa og insha Allah hadii ilaahay 2050 waxaa la filayaa 9 milyan dadku noqdaan dunida cunto imika bayaan 8 qof baa habeenkii gaas ku seexda weli waxaa oran karaya xagga dalkeena waxa laga yaabaa 8 qof inay 3 ku seexdaan ama 4 ku seexdaan marka dhibaatooyinka la rabo in lagu hortago waxa weeyaan wax soo saarka in la horumariyo taagi soo koon waxa la ogyahay marka sidoo guud sheegay in lacag badan la diro waxa laga yaabaa inaan diro on xamil kareey laakiin sakayga ka andalay Allah yaclam ilaahay oo saar doona dhibaatooyinka haystay marka laakiin waxa raba lacagtan imika wadanka loo diray in laga faa'iideysto sababta lacagaha loo bixinayaan inkastoo aad u yar tahay waxa weeyaan in bal la eego waxaan in la qaban karo soo saar karay reer baa laga hadlaa marka Soomaaliya ay tii wax ka hadlayaan waxaas inuu reeyro barnaamijkan waa dunida oo dhan inaguna sirteen ogna waxa dhan isku sheegnay chance ka cindii meelayso maga waxa oran lahaa qof kasta oo leh wax waan qabsan karaya xitaa muxuu ahaayay wadankii qofka halka fikirka soo gudbinaya in qof liyaata ma noqon karo inuu noqdo qof dibadda jooga hadduu kari waayo oo boqolka 40 ka keeni kari waayo wala caawin karaya